saddex qodob oo aad iyo aad muhiim u ah gabadha marwada oo xaaska ah laga rabo inay leedahay waa saddex calaamadood inay leedahay laga rabaa gabadhan hadaa tahay maasha Allah tabarakallah waxaa tahay gabar maasha Allah tabarakallah lagu duceystaa tahay kii ku dayaco ka tagana wallahi oo billaah oo talahay been kuma sheegay saddexda magac ilaahay ma aha wallahi asaga qasaarin maada qasaarin waxba kaama go'in waxaadna noqonaysaa gabar aan weligeed alla hadli ilaabin hadaad saddexdan leedahay wixii tagaayo bari waxba kaama galin bari buu tagayaa iyo waa lagu baasi waxa iska ilaaw saddexdan hadaad marwo maanta inaad tahay oo reer leedahay wayna saddexdan calaamad leedahay hadaad aheenood rabtid inaad noqotid wayna saddexdan calaamad isku soo diyaarisid inaad noqotid qodobka koowaad waa inaad markaad reer leedahay aad ogtahay inaad tahay qof marwo ah oo xaas ah oo mas'uul ah inaad tahay waynaad ogtahay qodobka labaad waynaad tahay gabar ninkeeda hadalkiisa maqasho u fiirsiyaa waynaad ninkaaga wax hadaladiisa go'aamadiisa waynaad ku ixtiraamtid oo ku adeecdid ninkaaga waa inaad ma aragtahay aad ma aragtahay mas'uuliyadihiisa faraha uga qaadid waxaan aad horboodaysan oo ragii mas'uuliyadihii aad ka xanuuminaysaan oo ilaahay kuma darnaade ma iska daa ilaa kaaga marso kareemkaaga yar marso shaawarkaaga qaado waxaaga qabso barkintaada dhac naso jimkaaga aad exercise mas'uuliyadda ninkan uu ilaahay saaray faraha kala bax ha kula dhigin si mas'uuliyadiisa midda saddexaad wanaad tahay gabar qalbi wanaagsan oo cafis badan haddii qofka aad isku dhaxdaan wixii aad ka heshiisaan ha ku daba dhigin waxay u tageen ha ahaadaan niyadaada nadiif ka dhig xaqdiyay ku galin xaasnimayay ku galin gurigaaga ilmahaaga zawjkaaga ku ekoow maxaa ku soo haray waxaad baran karto waxbarashadaada dib ugu noqo horumarkaada kala samee naftaada ku mashquul maasha Allah tabarakallah gabadha nooca hadaa tahay waxaa tahay gabar aad iyo aad daymanka ka qaalisan sida lagu helana way adag tahay peace and love